السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalyaal soo dhawaada Ramadaan Kariim Ramadaan Mubaarak waxaan idin wadnaa maanta talooyin aad muhiim u ah inta aanan guda galin talooyinka aan idin wado insha Allah waxaan rajaynayaa inaad nagu soo biiri doonto haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar channelkeena Kasmo Hospital sidoo kale haddii aad hore ula socotay muuqaaladeena fadlan haddii muuqaalka uu ku cajib geliyo waxaad ka faa'iido inaad like ta saarto ayaan aad ugu dhiirigelinaa insha Allah oo channelka ay kor u qaadaysaa si dad badan oo gaaro waxaan ka codsanaynaa marka mar iyo mar labaad inaad like saarto dadkana u sii share gareyso oo aad gaarsiiso group badan iyo dad badan oo u baahan inay wax ka fahmaan Ramadaanka iyo talooyinkan muhiimka ah ee soo socda saddex talo oo aad u muhiimsan ayaan maanta idin wadaa insha Allah saddexda talo ee aan kala dhicin mid kale aan ka dhicin way isku wada xiran yihiin haddii talooyinkan aad raacdo insha Allah waxaan rajaynayaa Ramadaanka wax ku dhameysan doontaa caafimaad waxaadna ka faa'iidi doontaa bisha Ramadaan caafimaadkii Ilaahay ugu talagalay sidaan ognahayba cibaadaadka oo idil waxay leeyihiin xikmado Ilaahay u jideeyay Ramadaanka ama soonka in la soomo bisha Ramadaan ayaa waxay leedahay xikmad aad u weyn oo ah in qofka uu helo caafimaad baaritaano badan lagu sameeyay hadda waxaa la ogaaday in Ramadaanka uu yahay bilaha bisha ugu qiimaha badan maadaama ay tahay bil la soomaayo dadkana iska xadidayaan raashin cunitaanka waxaa la ogaaday in bishaasi kansarada la baabi'iyo waxaa la ogaaday faa'iidooyin badan in ku jiraan marka faa'iidooyinkaas badan si aad uga hesho maxaa waaye waxa aad sameyn karto talooyin u baahannahay dhakhtarka talooyin u baahannahay marka dad badan soo weydiiyay talooyinkii ayaan soo koobay marka waxaan ku soo koobay saddex qaacido oo muhiim ah saddexdaas qaacido daafantid oo aad ku dhaqanto oo aad ku socoto I hope in ay noqon doonto mid aad ugu faa'iideysato insha Allah qaacidada koowaad waxa waaye qabso cun raashin hal nooc ah sida baaritaano badan oo caafimaad lagu xaqiijiyay cunitaanka raashin hal nooc ah waxay caafimaad u tahay badqabka qofka sooman haddii aad cunto hal nooc raashin ah waxay caafimaad u tahay qofka sooman badqabkiisa tusaale ahaan afurka oo kale haddii aad cunto canjeero iyo maraq oo aan saliid badan lahayn caafimaadkaaga tamaam haddii aad cunto oo hore u cuni jirtay bariis iyo baasto haddii aad bariis iyo baasto iyo khudaartaada isku cunto maasha Allah laakiin hal nooc leebis bariis bis am basta bis sidoo kale muufi iyo maraq isku cuni jirtay waa maasha Allah haddaad cuni jirtay mushaari caano leh maasha Allah laakiin waxaa la diidayaa oo qatar ah sida raashinada hal qaacidana qabso markaad raashin yar cunaysid waxa qaacido kale oo ku dhex jiro qaacidadaas raashin walba oo muddo dheer kugu dambeysay wuxuu keeni karaa in calooshaada uu qaso sidaa darteed waxa ku haboon raashin aadan horay u cuni jirin inaad hadda bilaabin Ramadaanka dhexdiisa ha bilaabin raashin aad horay u cuni jirin hadaadan raashinkan horay u cuni jirin oo aad bilowdo Ramadaanka dhexdiisa inaad raashinkaas cunto wuxuu ku keeni doonaa caafimaad darro raashinada inta badan gadaal laga bilaabo waxa kamid ah chocolate shake ama hala ay sheeg waxay dhahaan shakes milk shake waxaas banana shake gaasoo kale mostly marka Ramadaanka la joogo qofka way qasaan waxa fiican in ka fogaato waxyaabaha seekada sidoo kale cambaha aad ku bislaaday asigana dad badan oo ka cabanaya ayaan arkay waxa fiican in ka fogaato qaraha sidoo kale markuu aad u bislaado ma fiicno qaraha xalxalka ma ku noqdo caafimaadka caloosha ma fiicno waxa fiican intuu waxoogo yar maaskootahay wana gudutay laakiin oo zaid oo xalxalina fiican caafimaadka sidoo kale maraqa oo kale iyo waxyaabaha oo saliid lagu sambuuska oo kale iyo burka iyo waxaas in saliid badan lahaanina la rabaa hadii saliid yeeshaan ama saliid badan yeeshaan jirray ku keenayaan dabcan marka waa qatar raashinada aan ku sheegay kulligood waa shukulaatada iyo shake milk shakes waxaan shakes lahayn waxyaabaha seekada oo dhan sidoo kale cambaha bisil iyo qaraha bisil aan ku dhahay ayaga labadaas qatar waa sidoo kale sambuuska iyo bajiyaha iyo bashmashka iyo waxa dhan waxyaabaha saliid badan ku jirto kale calooshaada ma xamili karta Ramadaanka way dhibaysaa haddii aad cunaysan waa inaad hore u taqaanay qof hore u cuni jiray dhib male laakiin qof Ramadaanka ku bilaabanayo hadda bilaaw ku ah macnaha raashinkaas cunitaankiisa aad bay u dhibi doontaa okay qaacidada uu hadda aan ka hadalnay oo ahayd in aad cunto hal nooc ah halkaas ayaan ugu baxaynaa waa qaacidada koowaad waa inaad hal nooc raashin waxaana ku dhex jiraan ku dhahay inaad cunto inaadan cunin oo iska ilaalisid raashinada aadan hore u qaadan jirin raashinada cusub raashinada calooshaada qoonin raashin kasta oo calooshaada aysan qoonin loos ahaada qaadanin caana ahaado cabitaan caanooyinka cusub oo hore aad u cabi jirin oo kale iska ilaali caana aad taqaanid calooshaada taqaan isticmaal wax kasta oo cusub waxay ku keeni karaan caafimaad darro marka qaacidada ugu horeysa waxa waaye cun raashin hal nooc ah qaacidada labaad ugu gudbaynaa qaacidada labaad waxay leedahay cun wax yar ab wax yar haday waxaan soo dhahay hal nooc cun okay halkii nooc cunays lafkiisa lama rabo inaad iska buuxisid looma baahno inaad si xad dhaaf u cunto cabitaanka aad cabaysidna wax yar ahaado sida caadiga ah Ramadaanka waxa waaye waxa loo yaqaanaa dry fasting ama soonka qalalan waxa la rabaa in qofka biyaha uu iska yareeyo maanta uu sooman yahay dabcan habeenkii markii uu afuran waxa la rabaa qaacidada raashinka intuu cunay in la akbis inuu biyaha ka cabo inuu garaafo soo agriyo garaafada isku daba gadiyo system caloosha
ay qaldaysaa saddex marka qaacidadan waxa waaye waa qaacida muhiim ah waa inaad cuntaa wax yar waa inaad cabtaa wax yar waa qaacidada labaad maskaxda ku hay waa inaad cuntaa wax yar qaacidadan marka waxa weeyaan waa qaacidada ugu muhiimsan raashin cunitaanka marka laga hadlayo guud ahaan laakiin hadda ramadaanka ku joogana si gaar ah aad ugu anfici doontaa dad qaacidada nabiga dajiyay sallallahu alayhi wasallam qaacidada waxa waaye markii qofka raashin uu cunayo waa inuu saddex calooshiisa u qaybiyaa caloosha haday qaado hal kiilo haday qaado waxa weeyaan waa in saddex u qaybiyaa saddex u qayb kamid waa inay ahaataa cunto raashin fakulu waa martaas saddex u qayb kale waa inay cabitaan ahaataa washrabu waa saddex u qaybta kalena waa inay banaanaataa waa inaadan daadacsanin haddaad daadacsato jira ku imaado ugu caafimaad kama helin ramadaankaas ramadaan qofka uu ku daacsaday caafimaad kama helin qaacida waa idalkeeda wax yar cun wax yar cab raashinka haddaad iska badiso ilaa aad gaarto aad ka daadacsato calooshana ay taaganto waxaad tagtay heerkii caafimaadka aad ka gudubtay xuduuddii caafimaadka loo sameeyey in ilaahay caafimaad uu qofka ka helo loogu talagalay ayaad joojisay waa dhaaftay okay qaacidada asalkeeda marka waa dhargin qofka waxaa asal u ah inuusan dhargin markuu afuraayo inuusan dhargin haddaa dharagto qaacidadu waa ka baxday qaacidada labaad waxaa waaye cun wax yar cab wax yar taasoo ah dhargin qaacidadii saddexda qayb loo qaybinaa caloosha waaye oo ah qayb biyo qayb raashin iyo qayb hawe qaacidadan waxaa la tijaabiyey in ay 100% qofka caafimaad siinayso ilaaha caafimaad bixiyay laakiin wadadaas ay tahay wadadii caafimaadka ilaahayna uu jideeyey ayay waxa nabigu uu jideeyay ilaaha jideeyay sida aan wada ognahay ilaahay quraanka wuxuu ku yiri wama yandiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha nabiga hawadiis kuma hadli jirin nabiga waxa uu sheegay waa wahyi ilaahay xaqiis ka ahaaday marka inuu ku dhaho nabiga sallallahu alayhi wasallam saddex qayb u qayb hawo qayb raashin qayb cunto inuu dhaho waa qaacido xaq ilaahay kaaga soo socdo marka ilaahayna asaa yaqaano qofka caafimaadkiisa iyo jirkiisa ilaahay marka qaacidadaas waa qaacidada labaad waa in aad cuntaa wax yarna aad cabtaa halaasna ku soontaa suxuur iyo afur iyo casho intaba raashinku inaad aad iska yareysaa qaacidada saddexaad ee muhiimka ah waa ha seexanin adigoo dhargan raashin inta iska buuxiso ama raashin aad cunto ha ku seexanin qaacidadan waa muhiim inaad raashin cunto oo ku seexato waxay leedahay caafimaad daro ma ogtahay jirrada aadka looga cabto xilliga ramadaanka waa jirade waa gaaska waa laabjeexa waa xanuunada caloosha waxa keena qofka oo seexda markii uu raashin cuno kadib haddii aad raashin cunto afurka ama aad cashayso ama aad suxuurato oo aad adigoo dhargan ku seexato caloosha waxay raashinka dib ugu laabanaysaa tubadii dhuunta waxayna keenaysaa xanuun loo yaqaan GERD ama laabjeex gastroesophageal reflux disease la dhahaa laakiin waa xanuunka laabjeex Soomaalidu taqaan ama laab qararka ama laab hurka ama bak hurka ama bak xanuunka waxa iska dheh waa in aad ka taxadirtaa marka raashinka aad cunto inaadan ku seexanin qaacidada marka waa qaacidada saddexaad ee aan ku soo ganaanudeen insha Allah haddii aad saddexdaas qaacida ka faa'iideysatay walaal waxaan ka rajaynayaa inaad share gareyso dad kalena aad u share gareyso dadkaas oo ka faa'iideysan karo muuqaalkan waxaan ugu talagalnay in ramadaanka dadka ay si caafimaad leh ku soomaan insha Allah waxaan rajaynaynaa si maartay wanaag iyo caafimaadka uu si siyaado in aad adigana si faafin doonto oo ku tuuri doonto meel dhaadheer aad gaarsiin doonto insha Allah muuqaalkiinan waad ku maasan tahay sida wacan aad noola soo socotay halkan ayaan ku keenaynaa waadna ku maasan tahay